markana gudoomiyaha aqlabiyada baarlamaanka wadankani Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa si rasmi ah uga hadlay ujeedooyinka saxda ah ee ciidamada Kenya ay u joogaan Soomaaliya. warbixin arrinka ku aadan waxa warkayaga habeenimo u diyaariyay wariyaha RTN ee arrimaha Kenya Cabdiraxmaan Khaliif. iyadoo sanadkii 2011 ciidamada Kenya ay gudaha u galeen Soomaaliya isla markaana hawlgalo muddo qaatay ka fuliyeen Soomaaliya ayaa markii dambe si rasmi ah qayb uga noqdeen ciidanka midowga Afrika ee AMISOM. balse siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan u arkaa joogitaanka ciidanka Kenya ee dalka Soomaaliya. gudoomiyaha aqlabiyada baarlamaanka dalkan Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa wuxuu si kulul uga hadlay sababaha rasmiga ah ciidanka Kenya ee u joogaan Soomaaliya. horta ciidamada Kenya ma joogaan Jubbaland mana joogaan Soomaaliya, waxaa joogaan ciidamo ku joog Kenyan oo kamid ah ciidamada AMISOM. marka waa inta kale ogaadaan ciidamada anaga waxay ku joogaan AMISOM, waxaana kismaayo u qabanay sabab ku salaysan national security interest ka wadankan dan kale aan kumani. dhanka kale wuxuu soo hadal qaaday fal dhawaan ka dhacay magaalada Mandera oo koox ka tirsan al-shabaab ay ka afduubteen dhaqaatiir Cuban ah oo meeshaas ka howlgalayay, asagoona sheegay in dhacdadaas ay muujinayso in ciidamada Kenya ay ku sii sugnaadaan wadanka Soomaaliya. darad waxaan la qabtay laba dhaqaatiir oo Cuban oo dadka Bulaxaawa iyo dadka degan meesha kale oo Ethiopia magaalada Suftu iyo Mandera bishii ilaa 2,000 oo dad Soomaaliyeed oo jiran oo qalataan u badan mutakhtarka sameynay 10,000 oo ku dhaw Soomaaliyeed oo arday oo Bulaxaawa ay soo gudbaan saraakiisha iskoolada Kenya imaadaan. dadka caafimaadka Bulaxaawa waxay soo doontaan Mandera, marka in haddana ay nimankan shabaabka ay soo dhaxmaraan oo ay takhaatiirta laga qaadaan mid annaka aan ogolaanayna mar madaxweynena waa inuu tilaabo qaado. marka annaka ciidamada waxaan u joognaa Jubbaland iyo Soomaaliya annaka ilaalinayno national security ga wadanka Kenya. madaxweyne Uhuru Kenyatta ballan buu qaaday markuu dheerinay inuu shacabka iyo hantida dadka Kenya uu xifdiyo ilaaliyo. Cabdiraxmaan Khaliif, RTN, Nairobi.